إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسه قدوميه دقمة واللوين إسماعيل الشيخ أبوكر وكوغيريو ذي إسبيتال كويا لما قال مقدشو يا ميت كيسا لغو قاضي ديارة قارها كاسي أولجيي دقمة واللوين قبل كشف الله هوسي وحنا للسعودي ميت كمرحوم كمامول كقبل كشف الله هوسي كان دقمة واللوين أهل كمرحوم كيعلم ودين. الله نحرسه مرحوم قدوميه دقمة واللوين ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala degmada Wallaweyn waxaana goobta aaska ku sugnaa dadweynaha ku nool degmada Wallaweyn odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo dadweyne kale aad u fara badan oo ka qayb qaadanayay aaska marxuumka. qaar ka mid ah ehelada iyo waxgaradka iyo maamulka gobolka kan degmada ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Wallaweyn. markii ka horreeyay ma inta siiyeen dhammaan bulshada weynta reer Wallaweyn iyo eelkii qaraabadii isku geeriyooday gudoomiye Ismaaciil ilaahay naxariis janaasi qabrisha ilaahay waasiyo kulli ana hadal badan inta dhaho maro lama kelmada bis dhahrawe qoyska reer Abuukar sharaf izma in filinga Sheekh Abuukar Shamanuur bulshada iyo deegaanka u soo difaaco dhimid dhiigshay hore gudoomiye Ismaaciilna si taas lamida usuga bulshada sin adeega oo dhimid waxa waa intaasna waxa waa sharaf iyo karaam iyo dadka dheerayaan waay tan lama aan dhahra waxa waay dhammaan qofka madii mas'uul ee waxa waay qalad iyo walba ku dhigi kare walna waxa waay suubiye walna waxa waay ku halaawayaan bulshada reer Wallaweyn ma ku codsadaan guud ahaan maamulkaano intii gudoomiye Ismaaciil qof walba qofkii wal ku tabada cafiyo wixii oo deen iyo wixii oo likleeyo ka maamul ahaan waxa way uni ballan qaadane waxa way uni mas'uuliyadaas eertaan saaradaane anin kooroy ku sameeyay gudoomiyihii maadaama ninkii loo ku tawaneeyo iyo dhammaan guud ahaan maamulka waxa way dhammaan bulshada reer Wallaweyn ma ku codsaday intii oo marxuumka afiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. markii ugu horeyso waxaan tacsi u diraa dhammaan shacabweynaha ku nool degmada Wallaweyn gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyooday gudoomiyaha degmada Wallaweyn Ismaaciil Sheekh Abuukar. kolba Ismaaciil Sheekh Abuukar kaliya ma ahayn gudoomiye wuxuu ahaa saaxiib dhow wuxuu ahaa walaal wuxuu ahaa garab wuxuu ahaa hogaamiye maantana taariikhda ayaa xusi doonto waxa uu degmadan u qabtay halka san iyo xoogaad uu joogay qof kasta oo degmada Wallaweyn ku noolna uu dareemayo maanta inuu qof garab ah naga baxay ma si hadla karno waxaan leenahay ilaahay Allah u naxariisto walaalkeena jannatu firdaws Allah ka waraabiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu anaga dhamaanteena samir iimaan Allah naga siiyo aakhirana ilaahay uu najiyo qabrigiisa jannatan ilaahay ha ugu dhigo awaal marin anagana gadaashiisa Allah nama fidneeyo insha Allah ta'ala dhamaan waxaan idin leeyahay bulshooyinta Wallaweyn in dareemayna xanuunka anaga dareemayno samir iimaan Allah naga wasiyo insha Allah. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dhamaan ehelka ku nool degmada Wallaweyn gaar ahaan shacabka degmada Wallaweyn waxaan tacsiin ugu dirayaa gudoomiyihii naga geeriyooday degmada Wallaweyn kulli wuxuu qabtay wixii dhan waxa cadeen ugu filan maamulkiisa taagan kulli nin degmada soo dhaqdhaqaaqay onu dhinto waa aan wada cafino niida khayr aan ku hayno horta gadaashina ilaahay mana fidnaa Allah u naxariisto gudoomiyihii degmada Wallaweyn. bismillahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhamaan dadka reer Wallaweyn ma siin lahaa gudoomiyeen sharafta lahaay Ismaaciil Sheekh Abuukar ilaahay naxariisto marka hore naxariisto jannal ilaahay hijeeyo mid kale waxa way qofka geeg markuu isku noolyo magaca leeya markuu isku dhimidin magac kale link weere had geeg dhamay dhagaanay midkii la diyaariyay midkii la soo biyay iyo lahaay shalan macna ma lahaay gudoomiye Ismaaciil Sheekh Abuukar marka adduunyada horta intaas way ina isin ogaataan aakhir iyo adduunyada in shal dheeraan oo daris ayaan oo daqiiqad la in dhaxayta bas daqiiqadaas aad naftul ko qaadaw oo adduunyada ku tabti isla daqiiqadaas taawna aakhira macna ma loo xisaabta in wareegtay marka qofka mas'uul markuu isayina qof macna qalada ku dhiya mar wanaaga macna ma loo suubiya marka qof walba oo inta roogo marka ma soo codsadaan horta marka hore isku afiidaan walaalkeen oo qof walba macna bari adan tacamala suugaase insaas laakiin afiya jeclaadaas marka geegi us afiineen ilaaha macna hortaan oobsadi ilaahay macna waadiga jannada ku waraabiyo
horta marka hore isku cafiinaan kulligan midda kalena waxaa ehelkii iyo qaraabadiina in samir iimaan ilaahay ku siiyo midda kalena macquul ah in qof mas-uul ahay waay oo degmada dhan maamulay in us xoolo dad unku maqayaan macquul ah ninkii walki maqayaan inaa soo sheego la rabe ninkii walku maqan soo sheegoy maamulkii degmada roog kusimihiya roog gudoomiye gobolka roog ku-xigeenadii kala roogaan marka waxa qofkii kale oo walku maqan usuna soo sheegay kor ehelna rooga maamulna rooga maasha Allah nasiib shay macnaa Michael aad iyo aad faraxsanahay geega inta dadkan oo aad intirada badan macnaa miimada hadda dhow in jamaaca noocan qof Soomaaliyeed ina degmada jiro taas ma muujiyaasay jaceelka dadka in qabaan iyo sidii in ku xuyaan mas'uulsha oo ku geeriyooday marka ilaahay baad shay min fidiyaayo unun islaan iyo silimid ah unun ilaahay ninkaas in linin duugo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه ما يأتي الله الفرج قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا حالة واسعة allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Wallaweyn ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa ruux wadani ah ee wax weyn ka qabtay horumarka degmada iyo ka shaqaynta arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha degmada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaana la geeyay gurigiisii dhabta ahaa allah u naxariisto gudoomiyihii degmada Wallaweyn waxaana ilaah ugu baryeynaa in uu jannadii firdawsi ilaah uu ka waraabiyo ehladii asxaabtii qaraabadii iyo degmadii uu ka tagay samir iimaan allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun